bismillaah sheekada maanta aan kuu sheegayaa waxa ay ku saabsan tahay goormaa ayuu quursiga takoorka iyo yasidda goormay dadka iyagu ku bilaabatay goormaynu bilownay in aynu isbuursanno oo qaarka kale uu quursado liido uu ka dhigo maxaan ku rahdaa gumeeyo goormaa ayaa la hubaa inay wax bilowdeen kollay taariikhda hadda aynu hayno maadaama aysan jirin wax qoran maadaama aysan jirin wax maxaan ku rahdaa proof oo record garaysan oo arkiibyada aynu kala soo baxayno waxay noqonaysaa wax ama aynu ku helnay naloo soo wariyey oo dhaqankeennii oraahda ku samaysnaa oral society baynu nahay ee gabayada iyo ku salaysnaa sheekada iyo sheeko maxaa la dhihi jiray isu soo tebiyo iyo qoraallo yaryar oo aanu meelaha ka helno ayaan isu geynaynaa sheekaynu ka samaynaynaa waxay mana aha the only truth ma ahan waa qayb ka mid ah runta jirta kow waxaan aaminsanahay markii ugu horreysay ee bini aadamku waa ku celcelinaya arrintaasi maxaa yeelay dad badan baan ogoleen in ugaarsasho lasoo maray noloshu aadanuhu waxay soo martay ugaarsi waqtigii ugaarsashada maxaa yeelay bini aadamku haddii aad dib u noqotid milacso nebi aadan calayhi salaatu wasalaam iyo xawaa markii ay bannaanka usoo baxeen oo ay jannada laga soo saaray haddii waad garan kartaa dhar ma aysan haysan dhar xirasho is-astur miraha cun maxaan ku rahdaa kadib survival baa bilaabanaya soo daadeg annagu marka aanu ka hadlayno taariikhda hore qof kasta qolo kasta oo dunida jirta waxay soo martay in ay dabato ugaarsato xayawaanaadkii markaa agaarkooda ka dhowaa taasi waa mid laakiin markii quruun la joogay baa dadkii way ka gudbeen oo transition baa dhacay oo qaar baa waxay u gudbeen in ay marka xoolo dhaqato iyo xoolo dhaqasho ay sameeyaan taasoo runtii dadkayga aad u fidgaraysay dadka aynu nahay iyo deegaanka aynu ku nool nahay xoolo dhaqashadaasaa aanu dhaqan iyo hiddo u helnay oo aynu nool ka samaynay ku sarbaabgarownay runtiina noqotay mid maxaa la dhihi jiray siiba geela iyo soomaali waxa weeyaan runtii waxa weeyaan waa astaantayada calankayna weeyaan kow marka waxaa dhici karaysa in soomaalidii markaa joogtay deegaanka ay joogeen dadkii marka waalaha ahaa iyaga unbaa isla dhalay dawaatad tiro yaroo farakotiris oo lasa wada yaqaan qaar baa dhici karaysa inay dabashadii ay isku qaldeen maxaa yeele hal mar lagama wada guurin xoolo maxaan ku waa la ugaarsan jiray waa laga soo gudbay xoolo dhaqashaa la geli doonaa dad baa xoolo dhaqashada completely noqon doona maxaan ku xoolo dhaqato oo absolutely xoolo dhaqataa qaarna waxay noqonayaan markaa inay xoolihiina dhaqdaan ugaarsashadiina ay sameeyaan kadib waa laga sii gudbayaa qaar baa markaa badanka dadku waxay u gudbi doonaa inay xoolo dhaqato noqdaan iyo beerley noqdaan marka waxaa dhici karaysa dad inaga mid ah oo markaa dadkii joogay in ay ugaarsadeen oo ay weli sii dabanayaan maxaan ku rahdaa sagaaradii iyo maxaa la dhihi jiray xayawaanaadkii kale ee dabiiciga ah ee waddanku lahaa dad baa ka xanaaqi kara dad baa u arki kara inay meel ku dhaco tahay maxaa yeelay horumarka aynu gaarnay waanu ka soo gudubnay waxaasi waxay noqotay wax laga faano markaa xirfadaasi sidaa baa dhici karta in lagu leebel gareeyo oo la yidhaahdo dabataad tihiin ugaarsataad tihiin dad fadhiid baad tihiin dad maxaan ku raha hare baad tihiin oo sida loo suntay waa dhici karaysaa waxaa ilaa hadda aynu xasuusanaa kollay anigu shaqsiyan marka aan muqdisho ka baxno 80-yadii dhammaadkeedii oo aanu baydhabo u soconno dhanka meeshaa ku taalla dad waxaa deganaa oo farti lagu fiiqayo eylaa degan la leeyahay oo wallaweyn iyo zoonkaasi maxaan ku raha beledoogle agaarkiisa oo leeyahay halkaasay degan yihiin farta lagu fiiqo oo reer runtii marka aanan garanay tirooda intay la eg tahay laakiin sida dadka gaariga saarnaa
iyo sida dhaqanku uu ahaa markaas sideetamayada dad la takooro oo farta lagu fiiqo oo aad maxaan ku bulshada uga takooran baa lagu tilmaamayay runtii dadkaasi waxay ahayd in bulshada lagu soo daro in wax la baro in fursad kasta oo qaranku markaa ummadda u hibeynayay in la gaarsiiyo taasina xil dowlad u taagan buu ahaa iyo markaa dadkii aqoonta lahaa ee markaa waddanka joogay laakiin taa waxay soo xasuusinaysaa marka dad baa waxaa loo takooray eeyay dhaqdaan weli way dabtaan weli maxaan ku sagaaradii iyo waxay daba socdaan maxaa la dhihi jiray dhaqankii laga soo guuriyay abkow haddii kalese dadku qaarba ay dafireenba inay xitaaba soo mareen marka taa way dhici karaysaa number 2 oo aan gadaal dambe u geli doono wax weeyaan waxa hubaalayana in dadka iyagu mararka dhexdooda conflicts u ka dhex dhici jiray oo la isdagaali jiray oo iyagoo wada dhashay meel wada degan oo haddana laakiin bahabaha iyo qaraabo soke iyo lasii fogaanay dadku ay tiro badnaanayaan waxyaalo badan laisku qaban karayo oo ay u badan tahay marka hore waa survival baa lagu jira dadka qaarkood cunadii baa dhici karaysa maadaama ay insecurity ay jirto cunada aysan ku filnayn cunaa lagu dagaalami karaya waxyaalo kale lagu dagaalami karaya maxaa la dhihi jiray waxyaalo badan baa lagu dagaalami calaa kulli xaal dagaalaa dhici jiray dagaalka markuu dhacana dad baa laga adkaan jiray haddii dadka laga adkaadana dadkii laba mid waa in dadkii in la tirsiro oo dadkii la baabi'iyo amase dadkii in la gumeeyo oo la addoomaysto taana dadkaa la addoomaysta iyana taariikhda ka qormi jirto sidaasay ku noqon jireen gacan oo dad second class citizens ah oo hoos yimaada oo la gumeeyey oo la xaqiray sidaasay ku noqon jireen marka reeraha noocaas oo kalena haddee nin sidaa kusoo koray haddee kii ku xukumaya ama reerkii kusoo gumaystana haddee gabadhoodan ku siin mayaan ayagiina kuma ictiraafaya inaad la siman tahay waxyaalo noocaas oo kalena way dhaceen markaa dagaaladaa lagu kala adkaaday oo la ismaquuniyey oo la isduleeyey iyana waa la sheegay in sidaasi uu ku yimid maxaa la dhihi jiray isquursiga siday ahaataba siday ku dhacdaba waxaa dhacay waqtigay soo bilaabdeenba oon isleeyahay waqtigaasi soo bilaabdeen early muslimiintii soomaalida ahayd intaan islaamka soo gaarin ka hor bay waxaan soo bilowdeen siday ahaataba kollay ilaa iyo quruun bay soo socotay waxaanu u bidhaaminayaa waxay tahay in aynu ogaano sida waxu ku bilaabanayaan kadibna waxay noqonaysaa wixii institution bay noqonaysaa dadkii ilmihii baa ku dhalanaya kuwii waaweyna baa sida wax ku xukumaya systemkii bay saa ku noqonaysaa dad dhanba hadda eiladaas aan ku sheegayo institutionalized racism toos ah oo dad gaara lagu sameeyey weeyaan soomaalida ku samaysa qabaa'ilo waaweyn oo laga soo bilaabo soomaaliya laga soo bilaabo waqooyiga ilaa iyo waqooyi galbeed ilaa waqooyi bari ilaa iyo gobolada dhexe ilaa iyo koonfurta ilaa iyo maxaan ku rahdaa ras kamboni ilaa iyo NFD iyo soomaalida kale maxaan ku rahdaa soomaalida galbeed intuba iyo Djiboutiba soomaalida meesha degantaa dhan dad badan baa weli ilaa hadda sidii loo yasaa waana lagu qaldan yahay sidii wax looga sixi lahaa iyo habkii ugu wanaagsanaa ee looga gudbi lahaa arrintaasina waa wax loo baahan yahay qoorsiga guursooca heybsooca waxaasoo dhan waa wax xaqdarro ah oo waqti bilowday siday ku bilowdeenna waxaa dhici karaysa ugaarsigaasi ama dagaal isku duleeya noqotaya iyo siday ahaataba sidaasoo dhexdayada uga dhex dhacay dad aada isugu sokeeya oo isugu dhow oo walaalo ah oo isku qoys ah ama aan kala fogeyn oo isku taariikh ah baana arrintaasi sameeyey iyagiina buwaagna maysan reebin sidii ay ku sameeyeen iyo wixii dhacay maadaama aynu maqalnay oraah oo gabayo iyo geeraaro nagu soo gaareen ama hadallo sheeko carruureed nagu soo gaartay marka hadda waxaa la joogaa waqtigii aynu sixi lahayn maxaa yeelay dhibaato ba-an bay nagu haysaa bulshayada waxay ka mid tahay caqabaadka nuqtata sawdaa nagu dhex yaalla ayay ka mid tahay oo loo baahan yahay in wax laga qabto maxaa yeelay dad dhan baynu dullaynay dad dhan baynu leebel gareen dad dhan baynu xumaan ku samaynay ka wax samaynaya iyo ka lagu sameeyo labadu waa dhiban yihiin dib dambaynu arki doonaa dhibaatooyinka maskaxiyan iyo physically abusekaasi uu ku hayo
soomaalideena. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.